Maamulaha gobolka George Natembeya wuxuu sheegay in Caroline Kangongo ay aaday guriga waalidkeeda oo ku yaalo Elgeyo Marakwet ee gobolka Rift Valley kadibna ay isdishay. Arintani waxay soo afjartay baaritaano isbuucyo qaatay oo ay ka qayb galeen ciidamo kala duwan oo lagu raadinayay haweeneydani oo lagu tilmaamay in ay halis ahayd oo toogashadu aad u taqaano. Waxaa raadinteeda la bilaabay kadib markii laba nin ay ku kala dishay magaalooyinka Nakuru iyo Kiambu. mid ka mid ah ragga ay dishay wuxuu ahaa askari ay isla shaqaynayeen, midka kalena waxaa la tilmaamay inuu qayb ka ahaa jacayl saddex geesood ahaa ee iyada kala dhaxeeyay. isbuuc ka hor waalidkeeda warbaahinta la hadlay waxay gabadhooda ka codsadeen inay booliiska isu soo dhiibto. Ambia tu saa hii ajisalamishe kwa polisi sababu pia yeye ni askari ambaye anajua sheria, ni mzuri ajitoe na apeane hiyo silaha. Kama alikuwa pato wako na hiyo silaha apeane kwa serikali na ajisalimishe kwa serikali. Ule mtoto yangu ulifanya mbaya kuua watu, hata ungewacha watu alapo ukuje kusema kama iko na maneno yenye iko naye, lakini pole kwa watu alikuwa na mtoto. Kangongo waxay ka tirsanayd waaxda dambi baarista ee booliiska Kenya, waxayna ka howlgali jirtay kiisaska maxkamadaha la xiriira. waxaa lagu tilmaamay inay ahayd askari si wanaagsan u tababaran oo khibrad leh. booliiska dalka Kenya ayaa baadigoob adag u galay soo qabashada haweeneydan kadib markii ay dishay raggii uu jacaylka kala dhaxeeyay. wararka haweeneydani ayaa warbaahinta dalka Kenya qabsatay kadib markii ay magaalada Nakuru ku dishay askari magaciisa lagu sheegay John Ogweno meel 200 kilomitir u jirta halka ay dhacdada koowaad ka dhacday ay ku dishay Peter Njiro oo 32 sano jir ahaa. marxaladaha ku xiran dilka labada nin ayaa ah kuwa muran badan dhaliyay, ilaa haddana ma jirto cid wax badan ka og sababta loo dilay. bayaanka ay soo saareen booliiska ay ku shaacinayeen baadigoobka ka dhanka ah haweeneydani waxayna ku tilmaameen inay la mid tahay sheeko ku jira filimada cabsida leh. balse faqriga u dhaxeeya sheekadani iyo midda filimada waxay tahay in tani ay tahay dhacdo dhab ah. waxaana jira warar sheegayay in qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee booliiska ay dhuunteen kadib markii ay Kangongo ay fariin u dirtay. Kangongo ayaa looga shakisan yahay dilka nin ay saaxiibo ahaayeen oo booliis ah. dilka kadib ayaa la sheegay inay qaadatay bistoolad nooceeda yahay seska oo ay ku jirto rasaas. kadib waxay u jihaysatay Juja oo 200 kilomitir u jirta magaalada Nakuru, halkaasi oo ay hotel ka kireysatay. dhibanaha labaad ay qolka ugu yeedhay kadibna madaxa ay ka toogatay intii ay qolka ku jireen. xilli dambe isla habeenkaasi Kangongo waxay meydka Peter Njiro uga carartay qolkii ay hotelka ka degnayd. mid ka mid ah shaqaalaha hotelka ayay u sheegtay inay soo iibsanayso adeeg ayna wax yar kadib soo noqon doonto, balse haweeneydani ayaa dib ugu soo noqonin hotelka. booliiska ayaa sheegay in ay dhib badan kala kulmeen raadinta haweeneydani sababtoo ah waxa adag in la helo qaab lagula xiriiro maadaama ay telefoonkeeda kaga tagtay goobtii ugu horeysay ee ay dilka ka geysatay. saraakiisha dawladda ee baariya kiiskani ayaa ku tilmaamay mid la yaab leh sababtoo hal qori ayay u adeegsatay dilka iyada oo ku hubaysan bastoolad la soo xaday oo ay ku jiraan 14 xabadood. agaasimaha waaxda dambiyada George Kinoti ayaa shacabka ka codsaday inay gacanta ka geystaan soo qabashada haweeneydani uu ku tilmaamay mid hubaysan oo qatar ah. Kangongo waxay ka soo shaqaysay saldhigyo booliis oo kala duwan oo ay ku jiraan qaybta booliiska ee maamulka tareenka ka hor inta aan loo wareejinin magaalada Nakuru, halkaasi oo ay ka shaqaynaysay ku dhawaad 3 sano. waxaan uga digaynaa shacabka gaar ahaan ragga inay ka taxadaraan sarkaalkani ujeedadeeda uu yahay in ragga ay dabinkeeda geliso kadibna ay si naxariis darro ah u disho, ayuu yiri.